qarnigii 7 ee hijriga dunida islaamku waxay ku jirtay xilligii ugu madoobaa taariikhda dhanka bari waxaa ka soo duulay bahala aan naxariis aqoon waana tataarka kuwaas oo burburiyey Baghdad dhiiggii muslimiintana ka dhigay wabiyo qulqulaya dhanka galbeedna waxaa ka soo duulay saliibiyiinta kuwaas oo doonayay inay qabsadaan dhulka barakaysan muslimiintii way niyad jabeen madaxdiina way carareen culimadii qaarna waxay dhaheen kani waa dhamaadkii adduunka ee sugna qiyaamaha laakiin mugdigaas dhexdiisa waxaa ka dhex iftiimay hal nin aan seef kaliya sidan oo sitay qalin af badan nin kaligiis hortaagay boqorkii ugu awoodda badnaa tataarka nin noloshiisa inta badan ku qaatay xabsi mugdi ah haddana yidhi xabsigaygu waa cibaado dilkayguna waa shahiidnimo waa ninka ay maanta malaayiin qof ku hanuunsan yihiin cilmigiisa waa Axmed bin Cabdulxaliim bin Taymiyah al-Harani waa Shaykhul Islaam ibn Taymiyah soo dhawaada saaxiibayaal aniga waxaan ahay Abshir Casaawe halkanna waa Casaawe Media maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada ibn Taymiyah intaan muuqaalka sii gudagelin haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelka haddii aad horey noogu xirnaydna muuqaalka leeg dheh qisadeena waxay bilaabanaysaa sanadkii 661 ee hijriga waxayna ka bilaabanaysaa magaalada Haraan oo hadda ku taala xuduudka Turkiga iyo Suuriya guri culimo ayaa waxaa ku dhashay wiil loo bixiyey Axmed laakiin Axmed kan yar ma helin nolol degan markii uu jiray 7 sano oo kaliya magaaladii waxaa soo weeraray tataarka waxay caan ku ahaayeen in magaalada ay galaan oo ay gubaan dadkana laayaan aabihiis oo ahaa shiiq weyn waxa uu qaatay go'aan degdeg ah wuxuuna yidhi waa inaan cararnaa isla caawa qoyskii waxay rarteen gaari dameer laakiin gaarigaasi waxay ku rarteen dahab dhar ama raashin jawaabtu waa maya aabbaha ibn Taymiyah waxa uu gaariga ka buuxiyey kutub aad u fara badan jidkii ay ugu carareen si degdeg ah gaari dameerka ayaa dhooqa galay qoyskii oo dhan oo uu ku jiro wiilkii 7 jirka ahaa waxay xoog ku riixeen gaarigaasi si ay u badbaadiyaan cilmiga saaran dhacdadaasi waxay maskaxda ibn Taymiyah ku beertay fariin cad taasoo ah cilmiga waxa uu ka qaalisan yahay nafta iyo maalka waxa ay soo gaareen magaalada Dimashq halkaas ayuu Axmed ka bilaabay safarkiisa waxbarasho waxa uu ahaa mid mucjiso ah markii uu jiray 10 sano waxa uu xifdiyey Quraanka markii uu jiray 17 sanana waxa uu bilaabay inuu fadwo bixiyo waxa la sheegaa in yahuudi caalim ah uu damcay inuu imtixaano wiilkan yar laakiin markii uu arkay jawaabihiisa iyo aqligiisa yahuudigii ayaa islaamay ibn Taymiyah waxa uu noqday nin aan guursan aan ganacsi samayn waqtigiisa waxa uu hibeeyey 2 shay oo ah cilmi baaris iyo jihaad sanadku waa sanadkii 699 ee hijriga qatartii tataarka ayaa soo laabatay markan waxay qabsadeen Xalab iyo Ximis waxayna soo gaareen albaabada Dimashq boqorkii tataarka ee xilligaas oo ahaa Qazanqaan waxa uu sheegtay inuu muslim yahay laakiin ficilkiisa waxa uu ahaa kii Genghis Khan dadkii Dimashq way argagaxeen madaxdii magaalada iyo ciidankii Masarna way carareen magaaladiina waxay noqotay shimbir ay baalaha ka go'an yihiin haddaba yaad is leedahay wuu ku haray magaalada waxaa magaalada ku haray Sheekh ibn Taymiyah waxa uu sameeyey wax aan la filayn wuxuuna aaday xeryaha tataarka si uu la kulmo boqor Qazanqaan asxaabtiisu waxay ku dhaheen shiiqow waad isdilaysaa laakiin waxa uu ku yidhi alla ayaan tala saartay ibn Taymiyah waxa uu galay teendhada Qazan waxa uu ku fadhiyey kursi dahab ah hareerihiisana waxaa taagnaa dilaayaal halis ah culimadii kale ee la socotay ibn Taymiyah way gariireen qaarkoodna jilbaha ayay qabsadeen cabsi darteed laakiin ibn Taymiyah waxa uu istaagay boqorka hortiisa farta ayuu ku fiiqay wuxuuna ku yidhi adiga waxaad sheegtay inaad muslim tahay aabbaha iyo awowgaagana gaala ayay ahaayeen laakiin ballanta way oofin jireen adiguse waad ballan furtay waxaadna la timid waxaan alla ogolayn ee jooji dhiigga muslimiinta ee aad daadinayso Qazanqaan oo ahaa nin kibir badan uu naxay wuxuuna arkay ninkan aan ka hebaysanayn Qazan waxa uu isku dayay ibn Taymiyah inuu siiyo cunto
laakiin ibnu taymiya wuu ka diiday wuxuuna ku yidhi cuntadan waa xaaraan sababtoo ah waxaad ka dhacday dadka masaakiinta ah waxaadna ku karisay dhirtaad ka soo gurtay beerahooda maalintaas ibnu taymiya waxa uu dimashq ka badbaadiyey in la xasuuqo laakiin halkaas kumuusan ekaan sannadkii 702 ee hijriga markii uu dhacay dagaalkii weynaa ee shaqxab ibnu taymiya ma uusan fadhiisan masjidka waxa uu qaatay seeftiisa wuxuuna dhex galay ciidanka wuxuuna ku dhaartay oo uu yidhi wallaahi waan guulaysanaynaa nin baa ku yidhi dheh insha allah ibnu taymiya waxa uu yidhi insha allah dhab ah guushii maalintaasi waxaa qayb weyn ka qaatay dhiirigelinta iyo seeftii ibnu taymiya markii uu dhammaaday dagaalkii seefaha waxaa bilowday dagaalka qaraar waana dagaalkii muxaasadada iyo xaasidnimada ibnu taymiya waxa uu ahaa nin aan runta ka gaban waxa uu weeraray bidcada khuraafaadka iyo kooxaha diinta qalloociyey tani waxay ka caraysiisay culimo badan oo ag joogay suldaanka masar iyo shaam waxayna ku dacweeyeen suldaanka waxayna yidhaahdeen ninkani wuxuu doonayaa xukunkaaga dadkana wuu kugu dirayaa sidaas ayaa lagu bilaabay silsiladdii xabsiyada ibnu taymiya waxaa la geeyey masar waxaana la geliyey xabsiyo kala duwan xabsigii qaahira xabsigii alexandriya iyo kuwo kale intii uu noolaa waxa uu galay 7 xabsi laakiin muxuu samayn jiray markuu xabsiga galo ma ooyi jiray mise wuu niyad jabi jiray haddaba jawaabtu waa maya waxa uu yidhi hadalkiisii caanka ahaa ee taariikhda galay waxa uuna yidhi maxay iga qaadi karaan cadowgayga haddii ay i dilaan waa ii shahiidnimo haddii ay i musaafuriyaanna waa ii dalxiis iyo hijro haddii ay i xidhaanna waa ii cibaado oo rabbiga ayaan la kali noqonayaa waxa kale uu yidhi jannadayda waxay ku jirtaa laabtayda meel kasta waan aado way la socotaa xabsiga dhexdiisa waxa uu maxaabiista bari jiray qur-aanka iyo tawxiidka xabsigana wuxuu isku beddeli jiray madaraso marka la sii daynayo maxaabiista kale way oon jireen waxayna dhihi jireen shiiqow ha naga tegin sannadkii 726 ee hijriga ibnu taymiya waxa uu noqday oday da'ah da'diisana waxay kor u dhaaftay 60 sano cadowgiisii way daaleen laakiin weli kamay harin markan waxay soo qodeen fadwo hore uu bixiyey oo ku saabsan inaan loo safri karin qabuuraha xataa qabriga nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiis ha ahaatee si cibaado ahaan ah balse masjidka loo safri karo hadalkaas ayay qalloociyeen waxayna dhaheen waxa wacayay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee suldaankii uu carooday wuxuuna amray in ibnu taymiya lagu xiro qalcadaha dimashq xiritaankanna waxa uu ahaa xabsigiisii ugu dambeeyey qalcadda dhexdeeda ibnu taymiya waxa uu sii watay qoraalkiisa wuxuu qoray tafsiir wuxuu qoray radiyo laakiin cadowgiisii markii ogaadeen inuu weli wax qorayo waxay go'aansadeen ciqaab ka xanuun badan dilka maalin maalmaha ka mid ah askartii ayaa u soo gashay waxay ka qaadeen qalinkii warqaddii iyo qadkii waxayna yidhaahdeen suldaanka ayaa amray inaadan waxba qorin halkaas ibnu taymiya qalbigiisa ayaa ku jabay wuxuuna yidhi tani waa dhibaato aad u weyn sidee baan u difaacayaa diinta alle haddii qalinkii layga qaaday markii qalinka laga qaaday waxa uu bilaabay inuu dhuxusha dabka wax kaga qoro derbiga qolka wuxuuna aqrin jiray qur-aanka kariimka ah maalintii iyo habeenkii intii uu ku jiray xabsigii ugu dambeeyeyna waxa uu qur-aanka qatimay 80 jeer habeennimadii 20kii bishii dulqacda sannadkii 728 hijriga ibnu taymiya waxa uu dareemay in wakhtigiisii uu dhammaaday wuxuuna akhriyey suuradda alqamar markii uu gaaray aayadda dhahaysa inna almuttaqiina fii jannatin wa nahar fii maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir oo micnaheedu tahay huwaal kuwa alla ka cabsaday waxay geli doonaan jannooyin iyo webiyo iyagoo ku sugan meel run ah agna joogo boqor awood leh halkaas ayay nafta kaga baxday ruuxii geesiga ahaa waxa uu u duulay xagga rabbigiisa markii warka geeridiisa uu gaaray magaalada dimashq maxaa dhacay dadkii miyay ku farxeen cadowgiisiina miyuu dabaaldegay
jawaabtu waa maya. Subaxaasi magaalada Dimashq shaqadeedii way istaagtay, dukaamadii waa la xiray, dadkiina waxay u qulquleen xagga qalcadda. Rag, dumar, carruur, odayaal, qof kasta wuu soo baxay, waxaana la sheegaa inay ahayd janaasadii ugu weyneed ee taariikhda Islaamka wixii ka dambeeyey Imaam Axmed bin Xambal. Tirada ka qayb gashay waxaa lagu qiyaasay 500 oo kun oo rag ah iyo 15 kun oo dumar ah. Xataa ciidankii suldaanka ee isaga xiray ayaa janaasada ilaalinayay oo ooyayay. Ibnu Taymiyah waxa uu dhintay isagoo xiran, laakiin maanta cidinama xasuusato magaca suldaankii xiray ama qalcaddii lagu xukumay. Laakiin magaca Ibnu Taymiyah guri kasta oo Muslim ah waa laga yaqaanaa. Wuxuuna horay u yidhi, janaasada ayaana kala saari doontaa anaga iyo iyaga. Runtiina way kala saartay. Ibnu Taymiyah ma ahayn oo keliya shiikh kitaab akhriya, laakiin waxa uu ahaa tusaale nool oo muujiyey in culimmada ay yihiin difaaca koowaad ee ummadda. Waxa uuna baray in xaqa aan laga gaban xitaa haddii boqorada adduunka oo dhan ay kaa soo horjeestaan. Wuxuuna baray in xabsiga uusan xiri karin fikradaha, dhulkana uusan aasi karin cilmiga. Maanta 700 oo sano kadib weli waxaan dhahnaa Sheikhul Islaam, Allow u naxariiso geesigii Islaamka, inaguna nagu anfac cilmigiisa iyo geesinimadiisa. Haddii aad ka heshay qisadan quruxda badan, fikirka ku aadan qisada nagu reeb qaybta commentiga. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe sar channelka. Haddii aad hore noogu xirnaydna muuqaalka leegdhe oo sii sheer gare. Mahadsanidin.